wada tashi ayahanan aan wadnay waa soo gabagaboobeen waxaan qabanaynaa mar dhow oo group walba iyo koox walba aan dadkooda ugu soo fari doonaa guddiyo ka shaqeeyo dastuurka oo ku shaqeyn lahaa maamul gobolka banaadir inay soo diyaariyaan saala socotaan guruubyada waa badan yihiin oo gobolkan u dhigtoonaa oo ka shaqeynay qaara dastuur diyaariyeen qaara dibadda uga soo shaqeeyeen dadka qurbada jooga qaarna la soo xiriir maamulka oo la dastuurka waa diyaarinay waxyaabahaas oo dhan guddi isku aruuriyo oo maamulka gobolka banaadir state loo dhisaayo oo ku shaqeyn lahaa soo diyaariyo ayaan qabanaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo subxaana wa tacaala maalmaha xajka iyo asbuucyadan oo xajkii lagu maqan yahay oo fasaxyada la jiro ayaan waxyaabahaas ka soo shaqayn doonaa laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaan u yeeri doono gogol weyn oo ay dadku iskugu imaadaan oo ay ergooyinkooda soo dirsadaan oo looga dhawaaqi doono maamulka gobolka banaadir waxaana soo dhaweynaynaa oo codsanaynaa xukuumadda federaalka madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo oo in badan laga soo sheegay inuu danaynayo in maamul loo dhiso gobolka banaadir inta waqtigaasi ka dhiman inaan wada tashi la yeelano aan la fariisano oo ay talo ku yeeshaan oo ay qayb ka qaataan oo ay wax ka galaan ma lihin annaga gobolka maamulkii iyo dowladdii ayaan dhinac maraynaa oo la diriraynaa laakiin waxaan rabnaa inaan la dhisno nala dhisaan ay qayb ka ahaadaan oo ay hormood ka noqdaan haddii laakiin aan weyno waxay nagu qasbaysaa oo shacabka gobolka ku qasbaysaa inay inta fadhiistaan ayaga ay dhisaan maamulkooda ayna ku dhawaaqaan haddii ilaah yaraa biidni illaahi tacaala marka raalli ahaada waqti badanaad maaragtay aad fadhideen shirkeenna maanta saasaan ku xirin doonaa guddiyadaasna waa soo diyaarin doonaa fadhi kale oo ergooni wax walba waa ka shaqayn doonaa inta ka horeysana waxaan xiriir la suubinaynaa wada tashi la suubinaynaa mas-uuliyiinta waddanka ugu horeeya madaxweynaha sida arrintaasi si smooth ah oo nabad ah shacabkan gobolka banaadir ay u heli lahaayeen maamul ayaga ay soo doorteen haddii ilaahay raalli ka noqdo